warmurtiyeedkan ka soo baxay xarunta dhexe xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa baaq nabadeed loogu diray bulshada walaalaha ah ee shaqaaqadu ku dhex martay deegaanka Dharkeengeeyo ee gobolka Sool waxaana warmurtiyeedkan lagu yiri waxaan halkan baaq nabadeed uga diraynaa dadka walaalaha ah ee dagaalku ku dhex maray deegaanka Dharkeengeeyo ee gobolka Sool inay joojiyaan colaadda xisbiga talada dalka haya ee kulmiye waxa uu ka xun yahay ayaa war-saxaafadeedkan lagu yiri dadka muwaadiniinta ah ee dhexdeena ku dhimanaya waxaanu ka tacsiyadeynaa qoyskii qaraabadii eheladii iyo guud ahaanba qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dadka ku naf waayay shaqaaqada dhex martay labada beelood ee walaalaha ah ee deegaanka wada degan waxaana alla uga baryeynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo dadkii ku geeriyooday shaqaaqada kuwa ku dhaawacmayna in alle caafimaad taama siiyo xisbiga talada dalka haya ee kulmiye waxa uu dareemayaa ayaa warmurtiyeedkan lagu yiri xanuunka ay leedahay colaadda sokeeye ee bulshada walaalaha dhex marta sababtoo ah qof kasta oo ka geeriyooday waxa uu ka baxayaa qaranka Soomaaliland waxayna noqonaysaa ka dhimay oo kugu dhimay xisbiga kulmiye waxa uu warmurtiyeedkiisan ku yiri waxa uu xasuusinayaa beelaha walaalaha ah ee dagaalamaya in sida diinta islaamka ee suubanina farayso la ilaaliyo dadnimada ehelnimada iyo walaaltinimada isla markaana la joojiyo fidmo kasta oo qofka bini'aadamka sharaftiisa iyo naftiisa waxyeelaysa wixii dhibaato ah ee jirana in si miir qab ah oo walaaltinimo ku dheehan tahay nabadna salka ku hayso lagu soo xalliyo garan ahaan ummadda reer Soomaaliland dawlad ahaan xukuumad ahaan iyo shacbi ahaanba waxaanu waajib inagu ayaa war-saxaafadeedkan lagu yiri inaynu ka gurmano sidii loo bakhtiin lahaa colaadda soo kala dhex gashay dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka Dharkeengeeyo ee gobolka Sool si aanu dhiig dambe u daadan Soomaaliland waxay ku soo caanamaashay in dhibaato kasta oo bulshada soo kala dhex gasha lagu dhameeyo is-afgarad walaaltinimo wadatashi isku tanaasul iyo in wax kasta laga horumariyo nabadda oo ahmiyad badan ugu fadhida jiritaanka Soomaaliland maantana waxay nagu waajiba sidii aanu dhiig dambe u daadan bulshada walaalahana loo kala dhex galo si loo yareeyo dhibaatada halka ka dhalan karta sidaa darteed waxa waajib inagu wada ah in rasaas nool aan la isku adeegsan marka khilaaf yari uu yimaado balse wax kasta laga horumariyo wanaaga walaaltinimada iyo nabadgelyada wax kasto bulshada soo kala dhex galana looga tashado isla markaana loogu arrimiyo si miir qab ah oo xasilooni ay ku dheehan tahay iyadoo markastana mudnaanta la siinayo ilaalinta nafta bini'aadamka oo alle sharaf iyo karaamo badan uu siiyay war-saxaafadeedkan ka soo baxay xarunta dhexe xisbiga talada dalka haya ee kulmiye waxa ku saxinaa gudoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ahna murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga